قيامنا وحان إلهي كرجيني شهدي إلهي قال إنه كل شفاعة qabiilkayna waxaan leeyahay gaar ahaan laftaan ka dhashay daba sana jir ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab muuqaalkan wuxuu duubay ka hor intuusan isqarxinin wuxuuna kaga hadlay arrimo xasaasi ah muuqaalka haddaba qaybta hoose fariimaha aragtidaada ka dhiibo haddaad nagu cusub tahayna ku soo biir beejka kana mid noqo boqolaalka kun ee nagu xidhan si aad u heshid macluumaadkii ugu dambeeyey iyo muuqaalada qarsoon ee soomaaliya kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idiin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walbo muuqaalka la gareysa waxaan allah subxaana wa tacaala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu u sahlaa ilaahay subxaana wa tacaalaana awlaadda uu barakeeya inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiya inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiya qof walbo muuqaalka sheerta ku qabtaa la gareeyana waxaan rabbi subxaana wa tacaala aan kaga baryaynaa maal adduunye aysan filaynin inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyaa dembigood iyo dembiga waalidkoodana eebba u dhaafaa rabbi subxaana wa tacaalaana uu ku casuumaa jannatul firdaws laclaa xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax biidni illaahi alkariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro rabbi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka uu ka dulqaado caafimaadna ugu bedelo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtana rabbi subxaana wa tacaala ha siiyo gargaarkiisa iyo nasrigiisa dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxay dagaal xooggan ay kula jiraan dowladda soomaaliya ayadoona sidoo kale ay la dagaalamayeen dowladihii soomaaliya soo maray waxaana hubka ugu badan ay adeegsadaan ay yihiin dhallinyarada isqarxisa kuwaas oo ka tirsan koox ka baxda al-shabaab oo loo yaqaan amniyaadka islamarkaana si weyn al-shabaabka ay u tababaraan saciid cali guduudow wuxuu ka tirsanaa kooxdaas amniyaadka al-shabaab wuuna isqarxiyey waana 17 sano jir aan guursanin oo dhalinyaro ah kaas oo dardaaran iyo weliba muuqaal cajiib ah duubay ka hor intuusan isqarxinin waxaana muuqaalka uu muujinayaa in saciid hooyadiis aysan ka warqabin iyo aabihiis inuu isqarxinayo ama uu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab waxaana taas ay muujinaysaa in amniyaadka al-shabaab inay ogaadaan shacabka kale iska daayay aysan ogeyn waalidiinta iyo weliba xaasaska u dhaxa inay isqarxinayaan waana khibradda xagga ammaanka ee al-shabaab ama qaabka amniyaadka al-shabaab ay u shaqeeyaan muddada fogna ay u jiraan taas oo keentay in ururku uu dagaalamo islamarkaana ay fuliyaan howlgallo khatar ku ah ama howlgallo khatar ah ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan soomaaliya dhallinyarada isqarxisa ayaa aaminsan inay la dagaalamayaan kooxa gaala ah islamarkaana waa sida ay qabaan islamarkaana xuurul cayn ay helayaan hadday dhintaan sida uu saciid uu ku sheekaynayo waxaana saciid uu baaq u jeedinayaa waalidiintiisa ayadoona taas ay muhiim tahay in sidoo kale hay-adaha ammaanka ee dowladda dhallinyarada ay qoranayaan ee xagga ammaanka ama dharcadda ah inaysan ogaanin xaasaskooda iyo waalidiintooda marka la qorayo si laga hortago ama ay kaga hortagaan kooxda amniyaadka al-shabaab oo khubarada amniga ay sheegayaan in khibrad ahaan ay yihiin kuwa khatar ah ama qaabka ay u shaqeeyaan ogaasho la'aanta ama sida aan loo ogaanaynin inay ka tirsan yihiin kooxdan al-shabaab haddaba saciid cali guduudow ayaa arrintaa wuxuu ka hadlayaa arrimahaasi waxaana muuqaalkan uu ka mid yahay muuqaalada ay ka duubeen dhalinyaro ka tirsan al-shabaab ka hor intaan isqarxinin asoo islamarkaasi la hadlaya hooyadii dhashay aabbihii dhalay iyo weliba qabiilkiisa islamarkaana la dardaarmaya ila daawo kuwa sabra alla macahooda ay leeyahay marka insha Allah taala mujaahidiin waxaan rabaa inay sabraan suquurta marka joogan iyo markii wilaayadka ay joogan iyo meel kasta markii shaqo loo diro inay laazimaan shaqada loo diray amirka inay adeecaan as-sam'u wa da'ati lil-umara waa waajib in amirka la adeeco qofka amirka adeeco wuxuu adeecay rasuulka qofka adeecana waa Allah iyo adeecay marka waxaad ku gaaraysaa halkaas liibaan weyn liibaantaas ilaahay waa kaga raalnaqanaya marka waxaan leeyahay mujaahidiinta sabra ilaahi Allah subhanahu wa ta'ala wuu leeyahay waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah dagaalama oo la jihaada gaalada oo soo duushay wadanka Soomaaliya ku soo duushay meel kasta caalam islaam ay ku soo duushay kul dagaalama ay leeyahay ilaahay marka waxaa rabaa inaan laazimno jihaadkaas la amray sabarkaas iyo ilaahay noo dardaarmay hatta la takuna fitna ila fadna laga waaynayo sariga lagu mudo ay isku xukumayso laazim ay leeyahay meel kasta jootaan iyo makan kasta aad ku tukuntiin waxaan leeyahay dadka u dagaalamay in leeyahay makaanahu booskooda meesha ku jira hal ninka u dagaalamay hadda ninkaas aska deeyo oo meesha iskaga tago ilaahay dartiisa u dagaalamo markaas aakhiran waa taysa janna adduunyada nolol raaxo leh ku noolanaysa marka waxaa rabaa inay sabraan mujaahidiin meel kasta ay joogaan waxa lagu gaarayo waa halkan jannada waxa lagu gaarayaa sabar jannada waxa lagu gaarayaa sabar weyn inay sabraan bal ku baahan yahay sabar ilaaran ay sabraan oo aabahay waxaan leeyahay hada nolosha wiilkeeda ayaa shaadigalay wiilkeeda ayaa shahiiday waxaan leeyahay oynin oo waxa laga rabaa inaad waxa ku farxad aad noqoto maanta qiyaamana waxaan ilaahay ka rajaynay haddaan shaadi ilaahay ga qol inaan ku shafaaco qabiilkayna waxaan leeyahay gaar ahaan laftaan ka dhashay
inay mujaahidiinta ay taakuleeyaan meel kasta ay joogaan meel kasta ay ku arkaan inay taakuleeyaan war xeelaha ay ku biyaan zakadana ay bixiyaan zakada waa waajib ilaahay idin saaray wey haddaad diidaan maanta qiyaam ilaahay waa kuga ciqaabaya zakada aad diiday iyo soonkana inay soomaan iyo salaad inay tugto salaad waa waajib zakadana waa waajib soonkana waa waajib ilaahay ku saaray wey haddaad intaas maanta amaad keeni weyso بس إلهي وقوع قابي نارت إلى وطوري مركز دمنا مركو حن لها إن الصورتان هو أن مجاهد ملك استجوان أتاكل سنة هولها أتكون بحسان سي هرمر وقايل هان سي قارض أي لو لما أو ملك استجوان لو تاكلها وش ود قارض ملك استيمريسا مركو حن لها صبرة وددا أن عروتين جهادك تربية سي ما أنت قيامة إذا شفاء